بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خير كبضا إلهي سبحانه وتعالى هذه الحفظية عذرة إيا حنونة عصب أولا شيء إلها كما قنقلني إلهي وحن ويديسانينا حماية كامل حفظ كامل إنو نسيو حنون ذي هراء إي حنون كستا إي كو كستا عصب إلهي إنو حجاب شرتيسا يعني إلهي ويديسانينا أنك عرورتين انتنا لحريرتا إلهي سبحانه وتعالى سقا أود بضن إن الله على كل شيء قدير وحلب وكرا إلهي سبحانه وتعالى يسقى وحول أبوره خالق كل شيء وحول إلهي يسقى أبوره حنوضا للشيء قايو إلهي قعنتي سيكون جيران إله النقهي إله أنت حنوسا عافمات بحسي اللهم آمين. ما أنت وحنك هذا يا هدو إلهي يراهدو سدح تلاغو هدا قادو أما سدح عمل هدات سميسو waxay soo dedejinaysaa ducadeena in la aqbalo. Saddexdaasi waa soo koobaya qisana waa idin sheegayaa qof sameeyay tusaale ka mid ah haddii saddexdaas ilaahay u ku waafajiyo tawfiiqdu ilaahay ku waafajiyey saddexdaas camal hadduu ilaahay ku waafajiyo tawfiiqdu ilaahay ku waafajiyey saddexdaasi waxaa ugu horeeyo oo ikhlaaskana qayb ka mid ah khalwa waxaa micnaheeda inaad ilaahay aad u gooni ahaato iyadoon cidna kula joogin yaa allah yaa allah yaa allah inaad ku celceliso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku dhahdo ilaahu waa ii jeedaa ilaahu subxaanahu wa tacaala cid ila joogta malaha aan adiga ahayn ilaahu subxaanahu wa tacaala waxaasan ku weydiisanayaa kow horta waa khalwa la yidhaahda waa kow. laba waktiga khalwada waxay ku fiican tahay habeenka waktigiisa dambe ku fiican tahay waktigiisa dambe goorma waaye marka waktiga dambe waxa waaye thuluthul akhiir saacadaha ugu dambeeyo waa saacadaha ilaahay uu soo dego oo ilaahay uu dhahayo yaa wax i weydiisanayo oo aan siiyaa yaa dembi dhaaf i weydiisanayo oo aan u dembi dhaafaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala si u munaasab ah isaga uu u soo degaa waktigaasna waa waktiga qiyaamuleylka waaye. qisada intaan ka sheekeynin maxaa waaye camalka saddexaad? camalka saddexaad waxa waaye ilaahay albaabkiisa inaad gargaraacdo oo aadan ka tegin oo aad taagnaato. maxaa loola jeedaa? duco waay. markaas ducadaada joogto inay ahaato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ballan qaaday waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwat daaci idaa dacaan. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aniga addoonkeyga meel kastoo uu joogo waa ii dhow yahay. hadduu gacmaha taago oo uu ibariyo wuxuu rabaan siinayaa. hooyaan ka sheekeynayaa marka qisada hadda kor waa ka sheekeeyey. saddexdan hooyo isla samaysaan rabaa inaan idin sheego sababtoo dadaa waxay weydiiyeen sirta ku jirta maxaa dadka ducooyinkooda oo markiiba la aqbalayo ama soo degdegayso. hooyadan waxay sameynaysay hooyadan wiilaa ka xanuunsaday. wiilku waxaa ku dhacay xanuunada ka mid ah oo dawo loo haynin. inkastoo loo sheegay xanuunkaasi dhakhtar dawadiisa helay inuu jiro laakiin dhakhtarkaasna uma safri karto lacagtaasna ma haysato faqiiray ahayd. markaasi kadib hooyadaasi waxay ku hakatay maaragtay wiilkeedii oo xanuunsanaa. wiilkana ayayey u ahayd. marka sheekada aan ka sheekeyno waxaa dhacday bakistan waxaa ka dhacday in oo abaalmarin loogu yeero dhakhtar soo saaray dawooyinka dawo la raadinayay xanuunkeeda muddo dheer
ayuu ku guulaystay dawadiina waa shaqaysay marka abaalmarinaa loo balamiyey in la siiyo la karaameeyo la soo dhoweeyo oo shahaado la siiyo oo khaas ah dhakhtarkii marka diyaaradu soo qaatay wuxuu u soo aaday magaaladii hadiyadda uu ka qaadan lahaa abaalmarinta uu ka qaadan lahaa lagu karaameyn lahaa dhakhtarkaasi magaciisa waxaa la yidhaha doctor aishan doctor aishan diyaaradda markuu soo qaatay wax yaa badanaa ku dhacay diyaaradda hawada diyaaradda markay maraysay meel maaragtay oo degmo yar ah hawadeeda ayaa dabeel meel ay ka timid aan la ogeyn ayaa timid oo diyaaradda aysan la socon karin dabeeshii waxay dhaawacday matooradii diyaaradda matoor ka mid ah bilotkii diyaaradda wuxuu ku qasbanaaday diyaaraddii inuu dejiyo diyaaradda wuxuu dejiyey airboor yar oo degmo yar ku taal markuu dejiyey saacadduu fiiriyey wuxuu arkay meeshuu u socday 16 saacadood meesha waxay u jirta 16 saacadood calaa kulli xaal markuu soo baxay ayaan ula jeedaa marka waxaa dhacday qoladii airboor yar u ahaa ayaa wuxuu yidhi ma heli karaa diyaarad deg deg ii qaado oo magaaladaas i geyso oo aan ku balansanahay 16 saacadood kadib inaan joogo marka raalli ahaada meeshaasi meesha laga raba inuu joogaa waxaa ka hartay waqtiga balanta 16 saacadood qoftii joogtay airboorka xafiiska oo tikitka lagu jaro waxay dhahday diyaarad maba u baahnidba meesha aad ii sheegaysid magaalada aad ii sheegaysid waxay kuu jirtaa oo keliya 3 saacadood oo gaari ah baabuur iska kirayso magaaladaasi 3 saacadood kadib waa gaaraysaa marka waqtigii lagugu talagalay barnaamijka aad leedahay ka horaabaad tegaysaa waayuu yidhi baabuuruu kiraystay waddaduu saaray isagoo baabuurkii saaran mucjisaa dhacday 3 waxaa heshay horta 1 habeenay ahayd markuu baabuurka u kiraystay uu sii socday 3 waxaa ku dhacay 1 mugdi xoog badan ma jirin dayax 2 dabeel xoog badan oo markiiba diyaaradda dabeeshaas ay dejisay 3 roob xoog badan ay adag tahay gaariga inuu wado marka isagoo haysta qariito oo waddada ku gelisa magaalada wuu dhumay marka saacado markuu jahawareersanaa oo uu dhumay ayaa wuxuu arkay guri yar oo meel keligiisa gooni ku yaallo oo iftiin ka soo baxaya faynuus ay ahayd gurigaasuu marka abbaaray marka albaabkuu garaacay albaabka markuu garaacay wuu furan yahayba wuxuu arkay qof salaad u taagan oo haween ah haweentii salaada markay dhamaysay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa aragtay ninkan oo guriga soo galay markaasuu isagana wuxuu dhahay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha iga cabsan waxaan ahay dhakhtar soo dhumay ha iga cabsan waxaan ahay nin aada u dhibaataysan oo qorsho weyn lahaa aad og tahay qof la karaameynayo oo caalamka o dhan ay sharfaayaan oo meel barnaamij lagu sameeyey markii dhibkan uu ku dhaco kale waa fahmaysaa diyaaraddii waa la soo dejiyey dabeel hawadoo xumaatay iyo diyaaraddoo dhaawacantay haddana habeenkii 3 dhibaato mugdi badan wax la arki karin dabeel badan roob intaba waxay ka dhumiyeen waddadii meeshuu u socday wuxuu dhahay waa dhuunsanahay meel aan u socday meel kale ma aqaan marka ma isiin kartaa telefoon oo aan ku wacdo dadkii aan u socday waxay dhahday qof meeshaan degan oo keligiisa ah ma u malaysay in telefoon uu haysto telefoon ma haystay dhahday laakiin maadaama qabow iyo roob iyo maaragtay aada soo martay shaaha yaalo horta shaaha cab naso fariiso markay aragtay nin aamin inuu yahay doctor aishan shaahu cabi waa fariistay doctor aishan waxyaab badan u arkay wuxuu arkay maamadii waxay dhahday iska fadhiisay halkan maamada marka waxay ag fadhisay oo agteeda yaalay sariir yar oo wiil yar ku jira oo daboolan markii cabaar la joogaba
wiilkii saas u ruxruxaysaa inay hubsato inuu nool yahay in kale. haddana dhinaca qibladay u jeesanaysaa, gacantay taagaysaa. doctoorka ma maqlaayo waxay leedahay. markaasaa dhakhtarkii wuxuu yidhi maamum ku weydiin karaa su-aal? haa. meesha waxa jiifo ilmo miyaa? markaasay dhahday haa, waa wiilaan ayiyo u ahay. aawa aabbahood iyo hooyadood. aabbihii iyo hooyadii way dhinteen, ilaah u naxariisto. anaa ka faalo qaaday. wiilkii waa iga xanuunsaday. markii iga xanuunsaday ayaan meeshaanaan la soo degay inaan khalwo sameeyo. khalwo micnaheed waxaa waa inaad ilaahay gooni u noqoto. khalwada ilaahay waa jecel yahay. maalintii haddaad samayso 10 daqiiqo ama habeenkii inaad soo kacda iyagoo dadka dhan wada hurdaa aysan ku ogeyn, oo aad dhuumato meel gooni ah oo ilaahay alla kale noqoto, ilaahay waa jecel yahay. rasuulku wuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam. khalwada marka ilaahay taas waxay keenaysaa khalwada in ikhlaas alla inaad daacad u tahay ay muujinaysaa. sababtaa cid ku arkayso, cid ay istustusanaysid ma laha. badanaa qofka markuu nashaad, markii shaydaanka ama nafta iyo nashaad ay u samaynaysaa, ama naftaa nashaad kuu samaynayso markay dadka ku arkayaan inaad wanaag samaynayso, ama shaydaanka waa ku buunbuuninayaa, sababtoo ah wuxuu rabaa ikhlaaskaaga inuu baaba'iyo oo camalkaaga dhulka uu galo. laakiin hooyadan cid arkaysa ma laha, ilmihiina waa xanuunsan yihiin, ilaahay iyada waay. yaa allah, yaa allah. marka khalwada fawaa'ideeda waxaa ka mid ahaa la yidhi culummada waxay dhaheen qofka wuxuu noqonaa xaadir. waa ogtahay dadka qaarkood duco markay sameeyaan ma joogto maskaxdooda. waxay dhahaan allahuma qfir lii dambi, allahuma arxamnii, allahuma arzuqnii khayran. qofka saasuu dhahaya, laakiin markuu dhahaya carabku ka dhahaya, laakiin qalbigiisa ma joogo. marka khalwada waxay keenaysaa qofka qalbigiisa inuu joogo, xaadir uu ahaado. ilaahayna wuxuu rabaa qalbi xaadir ah. nebi muuse waxaa la yidhi calayhi salaam wuxuu soo maray nin ooynaya oo qaylinayo oo dhahayo yaa allah, yaa allah, yaa allah, yaa allah. waxbuu weydiisanaa marka, ilaahu waxaas isii, ilaahu waxaas isii, ilaahu arrintaas ii yeel, ilaahu waa ku tuugaa, ilaahu saasuu leeyahay. marka ninkii marka waa ooynayaa. markuu saas dhahayo waxaa dhacday sayidna muusa wuxuu yidhi ninkii u naxay. marka qayliduu qaylinayo, oohinta uu ooynayo, markuu u naxayaa wuxuu yidhi ani haddaan ahaan lahaa oo waxa aad sheegayso gacanteeda ay ku jiri lahayn, wallaahi waa ku siin lahaa. isdejiyuu dhahay, xoogaa isku dhimri, nafta u dhimri. isla markiiba nebi muuse ilaaha la hadli jiray si toos ah. ilaaha la soo hadlay. wuxuu dhahay muusow, ilaahay ma ka ogaal badan tahay? markaasuu dhahay subxaana allah, ilaahu wax walba adaa og. markaasaa wuxuu yidhi ilaahay ma ka karam badan tahay? karam waxaa ma ka deeqsi badan tahay? wuxuu dhahay maya, ilaahay cid ka deeqsi badan ma jirto. subxaana allah. markaasaa wuxuu yidhi ninka aada u naxaysid anaa kaaga naxtin badan, ilaahu waa kuu qirsanahay u dhahay. markaasaa wuxuu yidhi ninkaas dhahay yaa allah, yaa raxmaan, oo magaca ilaahay ku celcelinayo, carabkiisa ka soo baxda, laakiin qalbigiisa adduun ayuu ku maqan yahay. qalbigiisa adduun ayuu ku maqan yahay, anaa wax kaloo ku mashquulsan yahay. marka saasaan u diiday inaan ducadiisa u aqbalo. ilahay saasuu dhahay. marka culummada markay ducada ay tilmaamayaan aadaabteeda waxay ku daraan qofka khushuuc, inuu ku khushuuco oo ah xaadir alqalb inuu ahaado, qalbigaa inuu xaadir yahay. yaa rab, yaa allah, yaa raxmaan markaa weydiisanaysid. marka maamadii waxay ku celcelin, waxay si hoos u dhehaysay hadallo. markaasaa wuxuu yidhi dhakhtarkii wuxuu weydiin karaa ilmahan aabbahooda iyo hooyadooda ay dhinteen. anaa aabbihii waa dhintay, hooyadii way dhimatay oo agoon ah, haddana waxaad dhahda waa xanuunsan yahay. xanuun noocee ah? xanuun noocaasaa ku dhacay. marka waxay dhahday, waxaan dhahay xanuunkii waan maqlay, doctor eshaan dhakhtar la yidhaahdo ayaa dawadiisa helaa la yidhi, laakiin meeshuu degan yahay waa igu fog tahay, lacaguu qaataa, lacagtaas ma haysto, faqiiraan ahay. markaasaan waxaan bilaabay
saddex ayaan bilaabay fiiri saddexda maanta aan baranayn waxaa dhahday khalwaan galay ilaahaan u khalooday ilaahow doctor Eeshaan uma tegi karo ilaahow halkaan iigu keen markaasaa waxaan bilaabay dhahday saddex kow ilaahaan u khalwooday waa u keli noqday ilaahay aniga ilaaha i maqlayo markaasaa waxay dhahday laba salaadan salaatuleelkaan u taagnahay habeenkao dhan marna waa taagnahay salaadii marna inaan fadhiisto wardi iyo duco ayaan sameeyaa marka waa ducadii waa qodobkii saddexaad waxaan idiin dhahnay khalwa ilaahay keli u noqo arrintaada cid kale ha u sheegin sida nebi yacquub uu sameeyo kale wuxuu dhahay ilaahay aan u sheeganayaa dhibka i haysto ilaahay keliya u sheego keli ku noqo waa kow waqtiga salaatuleelka soo kac laba duco samee duco aad ku celcelinayso waxaad rabto duco aad ku celcelinayso waxaad rabto markaad samayso ilaahay subxaana wa tacaala idinkiisa waxaad arkaysaa ducadii oo soo degdegaysaad arkaysaa markay dhahday oo dhakhtarkii ku dhahday ilaaha marka meeshaanaa ilaahay keli kula noqday markaasaan ilaahay salaatuleelka markaan soo kaco markaan tukado laba rakaca kasta markaan fariistaan gacanta kor u taagaa ilaahu awoodaad leedahay aad doctor Eeshaan halkaan ku keento haba fogaato markaasaa dhakhtarkii wuu yaabay wuxuu dhahay oohinuu bilaabay dhakhtarkii waxay dhahday maxaa u ooynaysaa wuxuu dhahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxay dhahday maxaa u ooynaysaa dhakhtaruu ii sheeg markaasaa wuxuu yidhi diyaaradaydii oo sii socoto oo hawada marayso ayaa la soo dejiyey waa ducadaadii wuxuu yidhi in waxaa leegu kalifay intaan diyaarad kale qaadan lahaa markii lasoo dejiyey in gaari aan qaato waa ducadaadii gaarigii markaan soo raacay waddadii iyo wax walba waa ka dhumay maabka aan haystay waxaa laygu soo leexiyey gurigaagii waa ducadaadii culammada waxay dhaheen adducaa silaaxu lmu'min waxaan ula jeedaa nabigaa dhahay calayhi salaatu wasalaam adducaa silaaxu lmu'min waxay ku fasireen hubka qofkuu ilaaliyaa wuxuu siiyaa ilaalo buuxdo ducadana qofkay ilaalisaa marka ducada weliga ha ka niya jabin qaabkaas saddexda haddaa u samayso oo ilaahay aad u keli noqoto oo khalwa aad samayso walow xitaa waqtiga ha yaraado 10 daqiiqo 15 daqiiqo haddaan nusac kari karin laakiin qofka ducada uu ka badan yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku celcelinayo waqtigaasna uu yahay waqtiga qiyaamuleylka ilaahayna aad keli la noqoto ilaahay idinkiisa dhakhtarkii markaas muxuu sameeyey doctor Eeshaan wuxuu dhahay baawrkan kuu soo kaxaynaa way raacisaan adiga iyo wiilka calaa kulli xaal maamadii waa soo kaxeeyey wiilkii wuu soo kaxaystay meeshii suu u tago abaalmarinta wiilkii wuu daweeyey maamadii iyo wiilkii gurigu u gaday wax cajiib badan waay ma ahan oo keliya ducadii inay keentay doctor Eeshaan ma ahan keliya ducadii inay keentay dhakhtarkii daweyn lahaa ma ahan oo keliya in wiilkii la daweeyey bal ducadii waxay keentay wax aydan ku talagelin inay helaan oo ah guri ay leeyihiin meel ay degaan oo qurux badan iyo wuu kafaalo qaaday familkoo dhan ilaan dhakhtar lacag leh uu ahaa isagaa kafaalo qaaday wuxuu dhahay inta aan noolahay noloshiinoo dhan anaa kafaalo qaaday waman yattaqi illaaha yajcal anaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku nagu sheegay waman yattaqi illaaha qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsado yajcal lahu makhraja ilaahay subxaana wa tacaala makhraj ayuu ilaahay u furaa wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib meel uusan ka filayn iyo wax uusan filaynin uu ilaahay siiyaa maamadan ma filaynin in dhakhtarka meesha ugu yimaado ma filaynin inuu qaadi doono ma filaynin in maaragtay uu kafaalo qaadi doono dawadiisa ma filaynin in familkoo dhan gurigu u godi doono ma filaynin inuu kafaalo qaado doono noloshooda intaasoo dhan maxaa keentay saddexdii arrin ay samaysay culummadu waxay yidhahdeen waqtiga salaatuleylka oo ilaahay soo dego laba khalwa gooni ilaahay subxaana wa tacaala cid iidan kula joogin saddex ducada oo aadan kala joojinayn haddaad samayso ilaahay idinkiisa ilaahay ducadada ugu aqbalaya taqwada macnaheeda intaas waay qofka ilaahay inuu ka cabsado asoo keligiisa ah oo ilaahay uu soo xusuusto waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay makhrajuu u furayaa
إلهي سبحانه وتعالى كلي أنقى درتيس دقيقة كوبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.